gabadhan waxay la socotaa labadan wiil waxay si aad u la hadlaysaa mid kamid ah halka kan kale iska indhatirayso waliba isaga oo la hadlaya inta kadib wiilkii waa xanaaqaya waana isaga haraya la socodkooda wiilkii iyo gabadhii Israaceen waxa u soo dhacaya gabar kale wiilkii waxa ku mashquulaya gabadhii cusbayd halka uu iska indhatirayo tii hore hadalkeeda gabadhii waxay soo xasuusanaysaa naxariistii saaxiibkeedii ay xumaysay iyo sidii uu mar walba jaakadiisa ugu bixin jiray xilliyada ay dhaxantu jirto uguna xarragoon jiray dhinacyada ay fiirinaysaa oo waa ay raadinaysaa waxayna arkaysaa isagoo aad u careysan oo meel darbiga taagan waxayna isku dayaysaa inay ka raali geliso waxyaabihii ay kula kacday maadaama uu aad u careysnaa waa uu ka diidayaa waana uu iska filqayaa halkii ayuu nooga tagayaa si aan u soo badiyo muuqaalada noocan ah ha hilmaamin inaad like saarto sidoo kalena aad share dhahdo wiilkan duruufaysan gabar ayaa jacayl u sheeganaysa laakiin waa uu ka diidayaa waxa uu u sheegayaa inuu gabadhaas kala jecel yahay waxa uu tagayaa gabadhii uu jeclaa wuxuuna isku dayayaa inuu u sheegto jacaylkiisa laakiin markay aragto duruuftiisa waxay dhalinyaradii la socota ku amraysaa in ay ka dheereeyaan oo ay kala tuuraan gabadhii asaga jecleed ayaa qabanaysa waana uu ka diidayaa inuu raaco waxauna iska soo aadayaa meesha uu gaariyaasha ku dhaqi jiray way ugu imaanaysaa waana kaxaynaysaa laakiin waxa lacagtiisa u qabsanaya ninkii gaariga uu u dhaqaayay ayada ayaana lacagtii u celinaysa maalintii xigtay isaga oo meel qashin iska fadhiya ayaa waxay u keenaysaa dhar iyo kabo si uu ugu labisto oo uga baxo duruufta uu ku jiro waa kan isaga oo soo labistay oo xaragoonaya inta kadib waxa uu imaanayaa gabadhii oo meel ku sugaysa waxayna siinaysaa faraanti si uu u guddoonsiyo gabadhii uu jeclaa inta kadib waa ay soo raacayaan waxayna ku leedahay hadda u tag oo faraantiga u geli markay aragto gabadhii uu jeclaa aad ay u farxaysaa gacanta ayay u soo taaganaysaa laakiin uma gelinayo faraantiga oo wuxuu u bedelinayaa gabadhii duruufta ka soo bixisay oo ayadu jecleed isaga waana halkay Soomaalidu ka tiraa abaal nin gala badan nin gudaasa yar daawad haddii aad xiisaynayso inaan soo badino muuqaalada noocan ah ha hilmaamin inaad page-keena follow dhahdo sidoo kalena muuqaalka aad like garayso oo aad share garayso gabadhan ayadoo aad u naxsan ayaa waxay ka soo baxaysaa isbitaal waxayna gacanta ku wadataa mashiinka lagu baaro uurka inta kadib waxay arkaysaa inay tahay positive oo ay uur leedahay aad ay u naxaysaa maadaama uurkeedu uu ahaa mid sharci darro ah inta kadib waalidiinteeda ayaa guriga ka buranaya dharkeeda ayay banaanka u soo dhigayaan waana ay dayrinayaan aabihii oo dil raba ayay hooyadii ka qabanaysaa ayadoo aad u murugaysan ayay iska soo baxaysaa oo horteeda ayay iska aadaysaa nasiib wanaag dhowr sano kadib waxay haysataa gabar sanad jir ah maalmaha ka mid ah ayay waxay isku dayaysaa inay ka soo diiwaan geliso gabadheeda xarada agoonta si ay uga hesho daryaal caafimaad iyo mid cuntaba inta kadib ninkii faylalka agoonta xarinayay ayaa wuxuu arkayaa wajigeeda kadibna wuxuu xaqiiqsanayaa oo soo xasuusanayaa inay tahay gabar hadda ka hor uu darooga siiyay kadibna uu faraxumeeyay sidaas ayuuna ku ogaanayaa inuu ilmaha yar isagu aabbo u yahay wuxuuna meesha ku go'aansanayaa inuu ilmihiisa isagu daryeelo waa hagaag daawade haddii aad jeceshahay inaan soo badino filmaanta gaagaaban ee noocaana ha hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena Meta Bro sidoo kalena muuqaalka aad like garayso oo share garayso mahadsanid